xarunta gobolka Doole ee magaalada Wardheer waxaa ka furmay shir wada tashi ah oo lala yeeshay bahda waxbarashada gaar ahaan barayaasha ka howlgala guud ahaanba gobolka Doolo. Kulankan uu shir gudoominayay wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo Mudane Cabdixakiim Faarax Jibriil iyo xubno kale oo ka mid ah gobolka Doolo. kulankan ayaa ahaa mid lagu soo jeediyay warbixintii waxqabadka sektorka waxbarashada doorka barayaasha looga baahan yahay iyo sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ayaa diiradda lagu saaray kulankani. dhinaca kale barayaasha kala duwan ee ka howlgala gobolkan Doolo ayaa soo jeediyay su'aalo wax ku ool ah oo la xiriira dhanka waxbarashada. intaasi kadib mas'uuliyiinta ayaa jawaab celin ka bixiyay su'aalihii kala duwan ay barayaashu u soo jeediyeen. sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa soo kormeeray goobaha biyo-gelinta waxbarashada iyo sidoo kale jidka laamiga ah ee isku xidha gobolada Doolo iyo Qoraxay oo waqti xaadirkan meel wanaagsan maraya. wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo Mudane Cabdixakiim Faarax Jibriil ayaa warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV ugu waramay halkaasi. waxaan u nimid inaan furno oo aan ka qayb qaadano shir loogu talagalay wada tashi lala yeelanayo bulshada kala duwan ee gobolka. marka shirka wuxuu ka soo bilowday heer degmo, maantana kii heer gobol baan qabanay. odayaasha iyo culimadiinka iyo dhalinyarada iyo bahda waxbarashada gaar ahaan macallimiinta, xirfadlayaasha caafimaadka, waxaasoo dhan baa shiro loo qabanay. marka shiro kala gaar ah oo kii ugu horreeyay saaka aan qabanay. saaka waxaan la yeelanay shirka macallimiinta muxuu ahaayey bahda waxbarashada oo dhan baan saaka la shirnay. marka waxaan kala hadlaynay dhowr arrimood. kow, waxaa loo soo jeediyey warbixintii 7 sano isbeddelka intuu dhacay. gobol ahaan mashaariic badan oo la fuliyay baa jira oo sektorka waxbarashada laga fuliyay. marka waa la soo jeediyey, way dhageysteen, kadibna kommentiyo iyo talabixino iyo su'aalo ka keeneen. sidoo kale waxyaabaha ay tabahayeen macallimiinta xaggooda xuquuq ahaan ay islahaayeen oo idinka maqnayeen laftarkeeda way soo dhageeyeen si cad oo aan qarqarsi lahayn, oo ay ka mid tahay mushaarka kororka oo kale. macallinku 2 jeer baa yaa laga yaabaa inuu sida caadiga ah tahay in macnaha uu koror helo mushaar. mar waa markii uu dalaco darajada hadda uu joogo, tusaale ahaan hadduu diblom ahaa digri u gudbo mushaarka kor in loo sameeyo waa qasab weyn. marna waa markii 2 sano uu joogo macallinku waa in kor u helo laftarkeeda waa loo baahan in kor loo sameeyo. marka xuquuqaha noocaas sanadadii ugu dambeeyay meelaha qaar waxaa soo baxayay in aan degmooyinka aysan u gelinaynin oo mushaarkii kororka ahaa aan loo samaynin. taasina maamul ahaan gobol ahaan iyo degmo ahaanba waan kala hadalnay, waan isla qaadanay 2018 wixii hadda ka dambeeya in loo soco insha Allah tacaala. waxbarashadu waa aasaaska bulshada. dad aan muxuu ahaayey macallimiinta aan iska dhisin horumar ma gaadho sida caadiga. waxay soo booqdeen oo aan tusaale ama best practice u qaadanay inaan soo tusno mashaariicaha waaweyn ee ka jira magaalada Wardheer. waxaan keenay mashruuci biyo-gelinta oo dhammaystiran oo isbedel kadib la sameeyay oo 100% si fiican u shaqaynaya. waxaan geynay high schoolka cusub ee isbedel kadib la sameeyay, wadda ayadana jirta oo ayadana la geeyay. waxaa jira hospital dhammaystiran oo ayadana la sameeyay oo isbedel kadib la sameeyay. waxaasoo dhan bay soo arkeen macallimiintu iyo qoladan kale ee xirfadlayaasha caafimaadka ah oo ugu dambeynna dardaaran guud oo aan kala qaadanay baa jirta in adeeg bixinta iyo tayada labaduba dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka in kor loo qaado. aan joognaa maanta waa xarunta qalada biyo-gelinta ee magaalada Wardheer oo aan booqasho ku nimid. waxaan maanta furnay shirkii dhismaha qaranka ee macallimiinta iyo caafimaadkeeda oo saakan gelinka hore barnaamijka waxbarashada aan hawdeegta waxbarashada ka shaqeynay sidii aan cashiro loo siin lahaa. waxaan ka wada hadlaynay kulli cashiradii la soo dhaadhiyay waxqabadkii 7 sano ugu dambeysay wixii la qabtay. macallimiinta wixii la gaarsiiyey, guriyihii loo qaybiyey, waxbarashooyinkii dheeriga ah la siiyey, tababaradii waxyaalahaas adigu in gashiga macallimiinta la gaarsiiyey oo dhan baan meesha ku falanqeynay. su'aalo badan iyo doodo badan kadibna waxaan iska qanacnay su'aalihii meesha ka jiray. sidoo kale gelinka dambe waxaan galabta u qabanay inaan bahda caafimaadka in ayadana sidoo kale aan tababarkii oo kala siino.
kadib markaan laba tababar dhamanay booqashadan maanta aan hadda ku jirnay aan joogno xaruntii biyaha baan u soo baxnay waxaan booqnay mashaariicda waaweyn ee laga qabtay isbedel kadib ayaan booqashada ku marnay waxyaalo badan oo in detail aan u eegaynay oo waxqabadka jira inay xuduudan xirfadlayaashu inay qayb ka noqdaan horumarka dalka ayaan waxyaalaha muhiimadda nooca waxa weeyaan aan booqasho ku sameynay inay xirfadlayaashu ay yihiin qaybta ugu muhiimsan horumarka dalka dhisaysa inay qayb ka yihiin yaa ugu muhiimsaneed mashaariicdan la dhisay inay maskax iyo maal wixii lagu taageer karay ku taageeraan oo maskaxdooda iyo shaqada ay hayaan xirfadda ay hayaan waxay qayb ka tahay markuu hooyada caafimaad qabta ay ilmo caafimaad qabta ilmo caafimaad waxbarasho caafimaad qabta la siiyo waxay noqonaysaa horumarka waddanku qayb ka yahay marka sidaal yacni iskaashi guud baa lagu horumarin karaa waddanka nabadeenna iyo wadajirkana lagu xoojina marka inaan intaan labada tababar qaban haddana aan kormeer midaysan soo baxno waxaa keenaysaa oo xirfadaas weliba si gaar taargeed ay noqdaan waxaa keenaysaa inay dhismaha qaranku aysan cid gaara u oolineen wax hawl wadareed ay tahay laga wada qayb qaadan inay tahay bashiir cabbaas cali warbaahinta deegaanka soomaalida SR TV xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer.